السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta walaalahay waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo. Qodob ku saabsan Qatar Airways, diyaaradaha Qatar oo bilaabay inay duulimaadkooda tartiib ay u bilaabaan, iyo qodobka labaad oo ku saabsan Iran ay heshay hub oo Mareykanka kusoo tuuray gobollo ka mid ah aan qarxin. Labaas qodob inaan ka hadlaan rabaa. qodobka koowaad oo faahfaahsan, waxaa si tartiib ah dib ugu bilaabanaya dhaqdhaqaaqa duulimaadyada ee mataarka caalamiga ah Hamad kadib xilliyo ay jireen xanibaadyo iyo xiisado amni. Hay'adaha dowladda rayidka ayaa sheegay in duulimaadyadaasi si qorsheysan dib loogu bilaabayo, iyadoo mudnaanta la siinayo badqabka rakaabka iyo shaqaalaha. Sidoo kale, Qatar Airways ayaa qorsheynaysa inay kordhiso tirada meelaha ay duulimaadka ku tegayso, taas oo gaari doonta in ka badan 150 kooxood bartamaha bisha Juun 2026. waxyaabaha ugu muhiimsan dib u bilaabidda duulimaadyada rakaabka iyo xamuulka, soo noqoshada duulimaadyada transitka ah, si isku xirka safarada, dib u howlgelinta shirkadaha duulimaadka caalamiga ah,